وعند وضيال كسر هذا ورئيسك تضباطك أو مرتي يقول هاي مشرح مدحوين عمر عبد القادر أحمد فقي إذا هم عصبة عمر عبد القادر waxaan jeclaan lahaa waraysiga toddobaadka waxaanu kaga hadlaynaa xaaladda taagan iyo siyaasadda Soomaaliya maanta doorasho lagu jira maxay tahay caqabadaha doorashada ay haysta aqalkii sanadka la soo xulay qaabka lagu soo xulay kii xildhibaanada aqalkii hoose oo soo socda oo isaguna caqabadiisa leh iyo doorashada madaxweynaha waxaan jeclaan lahaa marka hore ku soo dhawow Cumar waraysiga toddobaadka sidaad u aragtaa xulistii doorashada aqalka sare oo wali qaarkood Hiiraan oo kale iyo meelo ay wali dhiman yihiin aqalka sanadka الحمد لله ما تصنتها وإذا سلام يا أديك إيو تلفزيون كيونيفرسال سيد الله سعته ودنك بدلير بوحال الراديني إن دورشة أي كرد عضو حر أو حلالة أو لقبلي كرو أو سنة بتجلياه كل عضو سي أود الدلك يحكم يجوري تسنة بتجلياه نسيب درها دورشة دي مدة يسوجي تميسي أمر والبابا عقب ظهر خلاف أي كسب حيين أيضا مر بابا غلطي مركز أود إسبريسه أي سكوديسي إن أيضو doorashada si ayadu ay u fiican ay u soo baxdo markii aakhirkii laakiin doorashadii waxba la bilaabay aqalkii sare ayaa la bilaabay laba maamul goboleed waa ka soo dhamaatay laba maamul goboleedna waxba ku dhiman laba maamul goboleedna wali waa dhimay oo Hirshabeelle iyo Somaliland labadaas wali xildhibaanada aqalka sare ee matalaha ama sanataradii wali lama soo dooran nasiib darro aqalka sare doorashadiisii sidii sax ahayd looma sameyn waxa uu dhacday qaab madaxweynayaasha maamul goboleedyadu ayagu qaabkii qofka ay rabaan inuu senator soo noqdo oo aan tartan sax oo xaq oo xalaal oo xor oo xalaal oo san ka dhicin oo wax cusub oo la yiraahdo malxiis kursi walba loo sameeyay oo madaxweynayaashu ay si xadgudub ugu takrifaleen awoodii doorashada marka waxaan dhigi karnaa doorasho xor oo xalaal ah aqalka sare ma dhicin lagama soo dooran dadka ayagu hadda soo baxay ayagu aad ma lahan laakiin cadaalad darradaas iyo mas'uuliyad xumadaas waxa iskale madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayagoo marka ku soo takrifalay si cadaalad darraan u soo sameeyay aqalkii sare iyo sanataradii aqalkii hoose haddana habraaci inay la wareegaan oo awoodii isa siiyaan si ay haddana aqalka hoose dadka ay rabaan ayagu u soo saaraan ayaa hadda waxa ka taagan khilaaf hor leh iyo qayladaan aad u fara badan oo odayaashii Soomaaliyeed musharaxiintii kale aqoon-yahanadii kulli ay leeyihiin ma dhici karto ama macquul maahan in haddana aqalka hoose loogu takrifalo sidii aqalka sare ay ugu takrifaleen madaxweynayaasha maamul goboleedyada marka caqabada taagan taas waa tii aqalkii sare wixii dhiman ma ahna intii soo baxday waa sida ay u soo baxeen tan aqalka hoose odayaasha saameyn ku leh maamul goboleedyada sidoo kaleeto maxay tahay doorka laga rabay marka aad isleedahay guddiga doorashada ama habraacyada adinka aad diidantihiin halkaas la aadi lahaa horta sida badama hadii doorasho la qabanayo waa in hanaan heshiis lagu yahay oo wada ogola iyo guddi doorasho oo doorashada maamulo mar walba ay u noqotaa gundhiga maamulaya doorashada dadka mas'uuliyiinta ee xilalka sarsare dalka ka haya haday noqoto madaxweynaha federaalka haday noqoto prime ministerka haday noqoto madaxweynayaasha maamul goboleedyadu waa inaysan awood ku yeelan doorashada si looga ilaaliyo ayagu inay saameyn ku yeeshaan oo mas'uuliyadaha ay hayaan waxay u yeelanayaan awooddaasna ay doorashada ku fargeliyaan marka si doorashadii aysan loo fargelin doorashada waxa loogu talagalay guddiga doorashadu inuu maamulo habraaca guddiga doorashadu inuu soo saaro wixii siyaasiyan lagu heshiiyay maahana waxa kale oo dhan guddiga doorashadu inuu soo maro natiijada soo baxdana guddiga doorashada ee heer federaal inay ansixiyaan run ahaantii nasiib darrooyinka jiray ka mid tahay xataa aqalka sare wixii soo baxay waxa ahayd guddiga doorashada heer federaal inuu ansixiyo ilaa haddana inuu ansixiyay iyo inuu diiday lama garan karo laakiin haddii nidaam maanta jiro sharci sax ah waxay ahayd suqmaasuqii iyo ku takrifalkii aqalka sare lagu sameeyay in guddiga doorashadu diido oo yiraahdo doorasho xor xalaal ma dhicin sida daraadeed ma aqbali karno mana ansixin karno marka waxa guddiga doorashada awoodiisii looma ogolaan inay isticmaalaan oo doorashada ku ilaaliyaan inay si xor oo xalaal u dhacdo marka la leeyahay doorashada xor iyo xalaal weyn u dhacdaa waxa weeye weyn cadaalad ku dhacdaa waa inay qof kasto daneynaya kursigaas
oo ka soo jeeda dadka ama dadka loo asteeyay kursiga ama jufida loo asteeyay kursigaas waa inay u tartami karaan doorashada oo ay cadaalad noqotaa laakiin haddii doorashadii madaxweynaha maamul goboleedku qofku la coolana uu diidi karo qofku asagu wata ama saaxiibkiisana uu u ogolaan karo doorasho xor oo xalaal ma dhicin marka haddii doorashada xor iyo xalaal noqon weydo waa in doorashadaas la tirtiraa oo ibar laga dhigaa haddii sharci sax shaqayn markasta si doorashadu xor iyo xalaal u noqoto habraaca la raacayo iyo awoodaha doorashada maamulkeeda cidda iska leh ayay ku xiran tahay waa cid iska leh sida saxa waxay ahayd guddiga doorashada ee heer federaal iyo guddiga doorashada ee heer maamul goboleed oo ayaga ka hoos shaqaynaya inay awoodda yeeshaan habraaca doorashadan ay soo sameeyaan laakiin hadda shirkii u dambeeyey ee madasha la baxday madasha badbaadada qaranka ama badasha qaranka habraacii u dambeeyey wuxuu noqday in awooddii oo dhan ay yeesheen maamul goboleedyadu taasna dadkii way u cuntami weyse matalan waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda qayladu ka timid oo loo arkay inaysan xaq ahayn ama doorashadu aysan u dhici karin si xor oo xalaal waxaa ka mid ah ergooyinka yaa soo xulay lacagta ergooyinka laga qaadayo oo aan hore u jiri jirin oo wax cusub ah tartamayaasha ergooyinka iyo xildhibaanada dadka urtamiya oo la yidhi maamul goboleedka ayaa booliis soo marsiinaya oo wuxuu soo qaadanayaa warqad booliiska in markii hore heshiiska wixii ku jiray xubno ka tirsan ururada bulshada ama civil society-ga oo la yidhi waxaa soo xulaya guddiga doorashada heer maamul goboleed waxaasoo dhan markaad isu gegeyso waxay awooddii gacanta u gelinaysaa maamul goboleedka waxaa meesha ka baxaya guddigii doorashada madaxa bannaana oo loogu talagalay laguna heshiiyey inuu doorashada asagu maamulo marka arrinta taagan oo hadda caqabadda waxa weeyaan waa inaysan maamul goboleedyadu yeelan awoodda doorashada ergooyinka waa inay soo xulaan odayaasha jufooyinka kursiga iska leh ay matalaan waana inuu ansixiyaa odayga ugu weyn oo ku jira 135tii hore marka sida keliya looga badbaadi karo in ergooyinkii aysan maamul goboleedyada mas'uuliyintooda faraha u gelinin oo aysan ciday rabaan soo qorin ciday rabaanna aysan diidinin waa in kursiga jufidii iska lahayd odayaashooda ku heshiiyaan qaybsadaan sab jufiyoodkoodii ergooyinkooda soo xulaan odagaana saxiixaa guddiga doorashadana loo gudbiyaa oo aysan marinin arrintaasi maamul goboleedka iyo madaxweynaha iyo hay-adihiisa labo lacagtan la yidhi ergada laga qaadaya waa lacag sharciga aan waafaqsanayn heshiiskii hore oo siyaasadda aan ka mid ahayn waa inay meesha ka baxdaa midaan kale oo laleeyahay booliiskaa soo jeegaraynaya waxay soomaalidu tiraahdo weyaan isbaaro la rabo qofkii la rabo in lagu diido marka waxa adduunkana ka jira maahan qofka musharaxa booliis buu soo marayaa waa sharci daro marka wax sharci daraa inaanu jirayno oo dastuurkana aan waafaqsanayn heshiisyada siyaasadeedna aan waafaqsanayn oo loogu danaynayo ama awood lagu siinayo maamul goboleedka inuu qofku rabo hor istaago oo warqadda uu diido si uu u tartamo qofku rabana uu siiyo dadka Soomaaliyeed ma aqbali karaan mar walbaba in doorashada la boobo waayo doorashada haddii la boobo khilaaf baa ka imaanaya khilaaf hadduu yimaadana isdil baa ka imaanaya waxaa ku dhacaysa marka amnigii loo baahnaa doorashada inay ku dhacayso suurageli mayso awooddii dowladda si nabadgelya u wareegi mayso Soomaaliyana burburkeeda iyo khilaafka hortaagan iyo dowlad xumada hortaalana waxa asalkeedaba u sababa waa cadaalad darrada marka siyaasiyiinta Soomaalida haddii aysan kan waantoobin inay ayagu bursadaan boobaan doorashada nabadgelyana imaan mayso heshiisna imaan mayo marka waxaan leenahay mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta Soomaalida annagoo ixtiraamayna cadaalad darro idinka yeelmiyo dulmi idinka yeelmiyo shacabka Soomaalida aqbali mayo musharaxiinta idin la tartamaysa ma aqbalayso haddii dadkii musharaxiinta dad gaar ah loo soo qoro ama qof kamid ayaga uu soo qorto si aniguna qof ma soo qorin si uu tartami karnaa
waxay lid ku tahay mabaadi'dii dowladnimada, waxay lid ku tahay mabaadi'dii doorashada, waxay lid ku tahay mabaadi'dii cadaaladda, waxay lid ku tahay tartankii xorta ah oo xalaasha ah. marka dadka Soomaaliyeed maanta waa soo jeedaan cadaalad waxaan ahayn oo aqbalayaan ma jirto. wixii shalayto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweynaha madaxweynaadkiisii dhamaaday laga diiday oo xamar isku horumaadka uga dhacay oo qoryaha loo qaatay waxay ahayd kacar cadaalad darro iyo dulmi in la diido iyo in madaxweynaha muddada xiliska dhamaasay uu doorashada asagu maamulo. arrintaa waxaa ka dhashay in doorashadii laga soo wareejiyo madaxweynihii hore ee prime ministerka lagu soo wareejiyo oo la yiraahdo waxa tahay prime ministerka xilgaarsiinta doorashadiina adaa mas'uuliyadeedii lagu wareejiyay. doorashadaasuna waxaa la rabaa si xor oo xalaal ah oo cadaalad ah oo nabadgelyo inay u dhacdo.